shirkii maantay ee ka dhacay magaalada London ee looga hadlayay arrimaha batroolka Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay ganacsato Soomaaliyeed iyo sidoo kale ganacsato ajaanib waxaa kale oo ka soo qayb galay shirweynaha gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya maantay oo ay taariikhda 7 bishii 2019 waxaan halkan isugu nimid ganacsato badan oo caalamka kala timid iyo kambaniyada oilka iyo ganacsatada Soomaaliga oo inta badan iyo wasaaradda batroolka iyo khubaro badan oo Soomaali ah oo runtii aan barnaamij aan aad u jeclaysan la soo bandhigay oo daatada Soomaaliya oo maanta la balaqayo oo loogu talagalay bal in waxa jira iyo say tahay in dadku arkaan runtii marka waxaan isleeyahay wax aad u qurux badan waay waan soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeedba waxa bilowday tilaabo qaadkii iyo jidkii loo mari lahaa waxaan ku raadaa dhawaanshaha dalkeenu inuu kheyraadkiisa in la gungaaro insha Allah hadii la raado waana bilow fiican waxaan isleeyahay waa waxa banaanka laga sheegay iyo waxaan halkan ku aragnay wax badan oo u dhaxeeya oo farqi ah mas'uuliyiintii kale oo ka soo qayb gashay ayaa waxa ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka mudane Cabdiweli Ibrahim Muude oo halka qodbad ka jeediyay shirkan shir fiican oo muhiim u ahaa Soomaaliyana faa'iido weyn ugu jiro ahaa oo sir la siyaasiyeeyo buuska ama wax hadda ummadda Soomaaliyeed maslaxadeeda ka soo horjeedo oo meeshan laga soo jeediyay ma jiro kaliya waxay ahayd faa'iidada Soomaaliya haysata in adduunka la tuso intaas unba ugu muhiimsaneed ayadana shirkan saas ku furmay saasuna ku dhamaaday marka wax dhib kale oo jira ma jirin xaraashkan la leeyahay wax la xaraashay inta yeelo badeec banaankan taalo la xaraashaa ma jiraan badeecada la rabo hadda la soo bandhigayo wax gudaha ku jira waay marka taas mid hadda xaraash maysa ma aha marka waa war iska dhahay waay haddana waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxa uu sheegay wax dhibaato ah meeshan hadda kama jirin shirkana si fiican uu soo dhamaaday ugu dambeyntii ayaa waxa halka shirka ku soo xiray wasiirka macdanta iyo batroolka dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdirashiid Maxamed Axmed wasiirka ayaa halka qodbad ka jeediyay asagoo oo sheegay in shirweynahan maanta ay ka soo qayb galeen ay u tahay horumar dalka Soomaaliya u soo hoyday in lagu soo bandhigo kheyraadka dalka Soomaaliya halkaas oo ay joogeen ganacsato aad u fara badan oo doonaya dhankooda inay ka qayb qaataan horumarka iyo sidoo kale kheyraadka dalka Soomaaliya ee la soo bandhigay maanta shirkan waxa soo qaban qaabisay wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya iyadoo kaashanaysa shirkadii sahanka hore u sameysay oo isla markaasna daatada Soomaaliya gacanta ku haysay waxa lagu soo bandhigay shirkan macluumaadkii la aruuriyay 2015 ilaa iyo 2013 oo laga qaaday badda Soomaaliya qayb kamid ah waxaana maanta aan hoolkan loogu bandhigay shirkadaha caalamiga ah ee shidaalka ee daneynayay inay fursad u helaan inay maalgashtaan Soomaaliya taasaana keentay in wasaaradda batroolka iyo macdanta ay shirkan soo qaban qaabiso fakarka dadka Soomaaliyeed aan rabaa inaan maanta u saxo waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto u sheego in hantidooda Ilaahay ku manaystay ee kheyraadka batroolka iyo macdanta oo ay wakiil u tahay wasaaradda batroolka ay gacan aamina ku jirto isla markaasna sharciyadii loogu talagalay ilaa looga dhameystiro aan far la saari doonin sida wararka ku tirkutaanka ay sheegayaan oo dhahaya maanta waxa lagu xaraashayaa London blogyadii Soomaaliya cid kasta maanta markhaati u ah dadka ajnabiga ah ee dadka Soomaaliyeed maanta waxa u cadaatay wixii la sheegay inay been ahaayeen wax la xaraashay ma jirin xirmo Soomaaliya ama blog shidaal Soomaaliyeed oo la baxshay ma jirin saacado gudahooda wax lagu bixi kara ma jirin xanaan shidane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada London